عدالة بعد دعوة كهلي حكم عدالة كل عينه وكل دعي دريال لواد كهلهم تيفيق قرن كونوا النقضة متشاقي كرا حتى دليش حكومة اللوسو تشيدين أيو دخل يجيب حيني قفكي قادي قسنا دي كل عيسي سيد الله خرج كريني انت صاب بقول كمال مود لقود دياري ما شاء الله حكب بحي وحيستمرين مدحوينها جمهورية الصومالي الآن His Excellency عبد الرحمن محمد عبد الله قولها حكومة قدومية حسبك مروضة قرن كدمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته runtii caawa halkan waxaynu ku soo bandhignay waxqabadkii boqolka maalmood oo labadii wasiir ee iga horeeyeen guddida ku wada jirnay si wanaagsan u faahfaahiyeen qodob khadar baa ka hadlay oo dawladnimo iyo dawladnimo la'aan waxa u dhaxeeya in shacbigu qori qaato khatartaasaa la gaadhay waa la soo afjiray ilaahay fardiisa alxamdulilaahi rabbil caalamiin arrimaha dibaddana platformkii ugu weynaa ee abid somaliland 34 sano fadhiisatay دكتور محمد عبد الله عرّ يا صفر يستوي بقول يا فرطن ضل دقيقة ذكو جالسية قضية الصومالي الآن ما ملوناجا يا دقالها الدبلة أبوك بالله ما يا ويل كيساس اللي طلع يا مركب وهو الرئيس سياسة دي دقالي اللي جوك بعين لهذا اللي تجينا يا مدام كيده فرناية دقالة كل اسم لهذا اللي ديارنا يا وحال كان لو صوب بدي عاوة إن لسمية إن دخل الدولة دم بديسية dabadeedna transparent yahay dakhligii la bixinayay qofkii qaadayay qasnadii ku dhacaysay sidii loo kharash gareynayay intaasaa boqolka maalmood lagu diyaariyay meesha waxa ka baxay wax isdabamarin waxa la gaaray in maamul wanaag la diyaariyo maamul wanaagii wuxuu ka bilaabmayaa in xuduudda shaqaalaha laga shaqaysiiyo sharcigu wuxuu dhigayaa 8 saacadood in qofka shaqaalihii shaqeeyo maalintii si xuquuqdii suna u sugnaato waxa madaxweynuhu soo saaray digreeto amraysa in 7 subaxnimo shaqada la galo 3 galabnimona laga baxo waan la qabsanay durbood 3 dumar raacna iyadoo inagu adkeed maalmihii horreysay xuduudda marka laga shaqaysiiyo maamul wanaag baa imanaya waxa qalab casri ah lagu xidhay wasaaradaha waxa la socdaa qofku markuu shaqada soo galo iyo saacadu baxayo waxa la socda hay'adda shaqaalaha waxa la socda mas'uuliyadda wasaaraddaas marka mar haddii maamul wanaag dhasho dhaqaaluhu uu dhismayaa garsoorka oo runtii ah meelaha ugu weyn ee ummadi ama ka dhisanta ama ka dunto waxa la diyaariyay siyaasadii sahli lahayd in dib habeyn buuxdo garsoorka lagu sameeyo iyadoo aan ognahay inay madaxweynaha ka go'an tahay garsoorku inuuna ka soo haraynin madax bannaani buuxda inuu yeesho siyaasadii lagu madax bannayn lahaa baanu diyaarinay markuu garsoorku madax bannaani buuxda yeesho cadaaladdu waa waxa dadka deeqda waxa meesha ka baxaysa madaxweynaha la soo hadlay wasiir baa la soo hadlay dhaqaalahooda la habeynaya siyaasadii dhaqaalaha garsoorka lagu kordhin lahaa madax bannaanidoodana lagu dhamaystiri lahaa ayaanu dhamaystirnay garsoor cadaaladeed in la helo marka loo baahan yahay qofku wuxuu u baahan yahay xog dacwad cadaaladu dhacday inuu helo كو إنه هدنا هلو حكم عدالة كدعاء لبا هدي لبا حكمه حبس وقدر يلمو حقوق دي سلقو السوق انت صوت شرنشرو عدالة تستوى مريسا وحد كور هيسان حكومة دو دجير يا وحقبت وحي أود دسارتي أو الأركيسين دوكومنتري يالكن اللي كدا وسيني إن محبوس كحرية دي سلقا قاضي حكم عدالة كدعاء وضيع ترناضو حتى كو عرورتها مركا عدالة بعد دعوة كهلي حكم عدالة كل عينه وكل دعي دريال لواد كهلي ومدحونه وكم نوعي ماشى إن يحدنا ذان ضد مدناف كحدنا ذا بقول كمال الموت بنكوير قلني صاحب كيون اسمارك يا آدم كوجو مهند قياس حبسي بوصور دحق علي يا مدنافي أو عند 20 بقول كمال الموت بينه وجرته ولا ليال مركان انت كني مادو وحن مداه فرني مدحوينه نجوه قامين يا بقول كام مالمود أنو كجدا بين ورباهين الدولة وإنه النقطة ميل قرن كودلية يعني معارض يا محافظ تيفيق قرن كونو النقطة متشاقي كرا حتى دليش حكومة اللوسو تشيدين أيو وزارة أمر بي قبان نولي بواينو بيلا هدي سترتا ميل لغو أسطورية ميل وحلقة شرشرية مجرتو
warbaahin madax bannaan dexwa ummadda xoolihii qaranka lagu maalgelinayo qof kastoo cashuur bixiye uu xaq u leeyahay inuu codkiisu ka baxo ayaa madaxweynuhu nagu daafuray siyaasaddiisii warbaahinta ku salaysnayd waxaad habeen dhowey daawanayseen Faysal Cali Waraabe oo xukuumadda dhaliilaya waanu sii dayn meel dadka laga caayo ma noqonayso meel lagu kala qaybiyo ma noqonayso warbaahinta dawladdu waxay u diyaarsan tahay inay noqoto warbaahin ummadda u dhaxa dhaliisha xukuumadda loo soo jeedinayo sheegi karto baahin kartaa cunsuriyadda iyo waxa dadka kala qaybinayana ka hortagi karta ayaad madaxweynuhu ku daafuray koo nooguna socotaa waxaan kaga baxayaa walaalayaal boqolka maalmood waa barbilow weelkii baan cugnay oon tollay wixii lagu shubalayhaana weel haani gunbay ka tolatahay marka haanta gunta laga tolo iyaa wixii lagu shubayana loo diyaariyo beebabkuna way ku wada jiraan hadduu dhaqaalaha yahay hadduu arrimaha bulshada yahay hadduu cadaaladda yahay hadduu amniga yahay waxaan kaga baxayaa wuxuu madaxweynuhu nagu hogaaminayaa golaha wasiiraduna ka warqabaan lagula taliyaa markuu had iyo jeer waxa dhaca marka bannaanka la joogo sibaa wax loo arkaa marka xilka la qabto ee kursiga lagu fadhiistana si kale ay wax u ekaadaan boqolkaa maalmoodeen caawa soo dhigayno dadka soo dhignay golaha wasiiraduna ay markhaati ka yihiin kaabinetkana lagu soo qaadaa inuu madaxweynuhu noqonayo annana aan ku barbar taagannahay madaxweynihii u horreeyey ee wixii bannaanka uu ku qabaya markuu kursiga ku fadhiisto sidaa la ajligeed cadaaladda iyo garsoorku inuu madax bannaanaadaa markuu bannaanka madaxweynuhu joogay inuu madax bannaanaa la qumanayd tiibaa maantana la quman in dadku cadaalad helaa la qumanayd tiibaa maantana la quman in musuqa lala dagaalamaa la qumanayd tiibaa maantana la quman marka waxaan jecel lahay wixii madaxweynaha la qumanaana wuu la quman yahay wixii la qaldanaana waa la qaldan yahay kursigani ma bedelin hogaamintaasaa boqolkii maalmood waxqabadkaas halka u dhigtay aadna waad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala cadaalad baad dacwad ku heli xukun cadaalad ku dhacayna wuu kugu dhici daryeella waad ku heli TV-ga qaranku inuu noqdo mid sheegi kara xitaa dhaliisha xukuumadda loo soo jeedinayo dakhligii la bixinayay qofkii qaadayay qasnadii ku dhacaysay sidii loo kharash gareynayay intaasaa boqolka maalmood lagu diyaariyey meeshaa waxa ka baxay wax isdabamarin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland His Excellency Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi golaha xukuumadda gudoomiyaha xisbiga marwada qaranka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii caawa halkan waxaynu ku soo bandhignay waxqabadkii boqolka maalmood oo labadii wasiir ee iga horreeyeen guddida ku wada jirnay si wanaagsan u faahfaahiyeen qodob khadar baa ka hadlay oo dee dowladnimo iyo dowladnimo la'aan waxa u dhaxeeya uun in shacbigu qori qaato khatartaasaa la gaadhay waa la soo afjiray ilaahay fadligiisa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin arrimaha dibaddana balaadfoomkii ugu weynaa ee abid Somaliland 34 sano fadhiisatay Dr. Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa soo fadhiistay oo 140 dal daqiiqado ku gaarsiiyay qadiyadda Somaliland maamul wanaagga iyo dhaqaaluhu debilow buu ku bilaabmayaa weelkiisaas la tolayaa marka ugu horeysa siyaasadii dhaqaale lagu kubcin lahaa baa la dejinayaa nidaamkii daahfurnaaye dhaqaale ku dhismi lahaa baa la diyaarinayaa waxa halkaa lagu soo bandhigay caawa in la sameeyay in dakhliga dawladdu midaysan yahay dabadeedna transparent yahay dakhligii la bixinayay qofkii qaadayay qasnadii ku dhacaysay sidii loo kharash gareynayay intaasaa boqolka maalmood lagu diyaariyey meeshaa waxa ka baxay wax isdabamarin waxa la gaadhay in maamul wanaag la diyaariyo maamul wanaaggii wuxuu ka bilaabmayaa in cududda shaqaalaha laga shaqaysiiyo sharcigu wuxuu dhigayaa 8 saacadood in qofka shaqaalihii shaqeeyo maalintii si xuquuqdiisuna u sugnaato waxa madaxweynuhu soo saaray digreeto amraysa in 7 subaxnimo shaqada la galo 3 galabnimona laga baxo waa la qabsanay durboodii 3 dumar raacna iyadoo inagu adkeed maalmihii horreysay cududda marka laga shaqaysiiyo maamul wanaag baa imanaya waxa qalab casri ah lagu xidhay wasaaradaha waxa la socdaa qofku markuu shaqada soo galo iyo saacadu baxayo waxa la socda hay'adda shaqaalaha waxa la socda mas'uuliyiinta wasaaraddaas marka mar haddii maamul wanaag dhasho dhaqaaluhu u dhismayaa garsoorka
oo runtii meelaha ugu weyn ee ummadii ama ka dhisanta ama ka dunto waxa la diyaariyay siyaasadii sahli lahayd in dib habeyn buuxdo garsoorka lagu sameeyo iyadoo aan ognahay inay madaxweynaha ka go'an tahay garsoorku inuuna ka soo haraynin madax bannaani buuxda inuu yeesho siyaasadii lagu madax bannayn lahaa baanu diyaarinay markuu garsoorku madax bannaani buuxda yeesho cadaaladdu waa waxa dadka deeqda waxa meesha ka baxaysa madaxweynaha la soo hadlay wasiir baa la soo hadlay dhaqaalahooda la habaynayaa siyaasadii dhaqaalaha garsoorka lagu kordhin lahaa madax bannaanidoodana lagu dhammaystiri lahaa ayaanu dhammaystirnay garsoor cadaaladeed in la helo marka loo baahan yahay qofku wuxuu u baahan yahay xog dacwad cadaaladu dhacday inuu helo kow inuu haddana helo xukun cadaalad ku dhaca laba haddii laba xukumo xabsi uu ku daryeelmo oo xuquuqdiisa lagu sugo intaasoo jaranjaruu cadaaladdu istaba maraysaa waxaad ka warhaysaan xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay awoodda saartay oo aad arkayseen documentary-yaalkan laydinka daawadsiinayay in maxbuuska xorriyaddiisa laga qaado ee xukun cadaaladeed ku dhaca uu dayactirnaado xitaa kuwa carruurta ah marka cadaalad baad dacwad ku heli xukun cadaalad ku dhacayna wuu kugu dhici daryeella waad ku heli oo madaxweynuhu wuxuu ka madnuucay meesha inay xidhnaadaan dad muddo dhaaf ku xidhnaada 100 maalmood baanu ku hirgelinay saaxiibka Yoonis Maarka aad baan kuugu mahadnaqayaa xabsi buu soo dhaxgalay yaa muddo dhaafay oo waxaan dhici jirin 100 maalmood bay noogu jirtaa walaalayaal markaan intaa ka nimaadno waxaan daah furnay madaxweynuhu nagu hogaaminayaa 100 maalmood aanu kaga dhabaynay warbaahinta dawladdu inay noqoto meel qaranku wada leeyahay mucaarid iyo muxaafid TV-ga qaranku inuu noqdo mid sheegi kara xitaa dhaliisha xukuumadda loo soo jeedinayo wasaaraddu amar bay qabaan nin waliba waa inuu baylahdiisa tirtaa meel lagu asturayo iyo meel wax laga jarjarayaa ma jirto warbaahin madax bannaan dexwa ummadda xoolihii qaranka lagu maalgelinayo qof kastoo cashuur bixiyo xaq u leeyahay inuu codkiisu ka baxo ayaa madaxweynuhu nagu daahfuray siyaasaddiisii warbaahinta ku salaysnayd waxaad habeen dhawey daawanaysay Faysal Cali Waraabe oo xukuumadda dhaliilaya waanu sii dayn meel dadka laga caayo ma noqonayso meel lagu kala qaybiyo ma noqonayso warbaahinta dawladdu waxay u diyaarsan tahay inay noqoto warbaahin ummadda u dhaxa dhaliisha xukuumadda loo soo jeedinayo sheegi karto baahin karta cunsuriyadda iyo waxa dadka kala qaybinayana ka hortagi karta ayaa madaxweynuhu ku daafuray koo nooguna socotaa waxaan kaga baxayaa walaalayaal 100 maalmood waa barbilow weelkii baan xugnay oon tollay wixii lagu shubalayhaana weel haani gunbay ka tolatahay marka haanta gunta laga tolo iyo wixii lagu shubayna loo diyaariyo beebabkuna way ku wada jiraan hadduu dhaqaalaha yahay hadduu arrimaha bulshada yahay hadduu cadaaladda yahay hadduu amniga yahay waxaan kaga baxayaa wuxuu madaxweynuhu nagu hogaaminayaa golaha wasiiraduna ka warqabaan lagula taliyaa markuu had iyo jeer waxa dhaca marka bannaanka la joogo sibaa wax loo arkaa marka xilka la qabto ee kursiga lagu fadhiistana si kale ay wax u ekaadaan 100 maalmoodeen caawa soo dhigayno dadka soo dhignay golaha wasiiraduna ay markhaati ka yihiin kabinetkana lagu soo qaadaa inuu madaxweynuhu noqonayo annana aan ku barbar taaganahay madaxweynihii u horeeyay ee wixii bannaanka uu ku qabaya markuu kursiga ku fadhiisto sidaa la ajligeed cadaaladda iyo garsoorku inuu madax bannaanaada markuu bannaanka madaxweynuhu joogay inuu madax bannaanaa la qumanayd tiibaa maantana la quman in dadku cadaalad helaa la qumanayd tiibaa maantana la quman in musuqa lala dagaalamaa la qumanayd tiibaa maantana la quman marka waxaan jecel lahay wixii madaxweynaha la qumanaana wuu la quman yahay wixii la qaldanaana waa la qaldan yahay kursigani ma bedelin hogaamintaasaa 100 maalmood waxqabadkaas halka u dhigtay aadna waad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala